dowladda militariga ee Suudaan ayaa u soo jeedisay wadanka isutaga Imaaraadka Carabta inay joojiyaan taageerada ay siiyaan falaagada RSF ee dagaalka ay kula jiraan. wasiirka arrimaha dibadda Ali Yusuf ayaa mareegta al-Muhaqqaq waxa uu sheegay in xukuumadda Abu Dhabi ay siiso falaagada taageero military oo isugu jirta diyaaradahan duuliyuhu wadin gantaalo isla markaasina dhanka farsamada ay ka taageerto. waxa uu sheegay inay waajib tahay in Imaaraadku uu magdhow ka bixiyo xadgudubka uu geystay madaxbannaanida Suudaan. koorintaanay furmin wadahadallada Turkigu dhexdhexaadinayo ee dhexmari doona Imaaraadka Carabta iyo dowladda militariga ee Suudaan. xukuumadda militariga ee fadhigeedu yahay magaalada Port Sudan ayaa diiday inay ka qayb gasho wadahadallo la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo RSF iyo iyaga oo ka dhici lahaa magaalada Geneva ee dalka Switzerland iyo magaalada Nouakchott ee wadanka Mauritania, iyagoo sheegay inaanay diyaar u ahayn in wadahadal ay la galaan falaagada balse ay doonayaan in la sameeyo xabad joojin oo iyagu ay danaynayaan marka hore inay la hadlaan cidda taageerada buuxda siisa falaagada oo ah dowladda Imaaraadka Carabta. colaadda wadanka Suudaan ee bilaabantay bishii Abriil ee sanadkii hore ayaa waxa ku geeriyooday dad tiradoodu ay ka badan tahay 60,000 oo qof iyadoo ay barakaceen 14 milyan oo qof. dalka Suudaan waxa laga soo calaamadiyay macaluul ka jirta gobollo kala duwan haba ugu sii darnaado gobolka dhaca dhanka galbeed ee Darfur.